dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم نبض يا أردي ملك سود كسوانتين واحد كسلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبتمين تاني عصر قاعد بهالكي نوجسي سعوتي وحنكون جودة تاني أردي إن هستي عنك هيد هبلها جيس كه وعريي مجلس يملكي سبها الرجاء أبوان محمد إبراهيم ورسمي وكم قاعدين هتراوي هستن وحلا هذا هبلها جيس كهتان إذا راح سوسيو وحيكون رميس ملكها هي كالنت هاي كلها هين هوينك الصوماليين نلشة dadka Soomaaliyeed ay ku lahaayeen qaybtii aaraarta ahayd waynu ka soo gudubnay waxaynu u galay qaybtii qaybtii koobaad qaybteedii koobaad baynu u galay iyadoo heesaynu kala qaybin doono qaybta koobaad waxay ka waramaysaa balsaamiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed qaybta dagaalka ay ku leeyihiin bal maantana maxaynu u galaynaa halkii baynu ka sii wadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo halkii baynu ka sii wadaynaa wuxuu yiri gu hagaagay oo daay waa gu la naqaystay oo si fiican u daay oo dad iyo dunyaba la taransaday oo dhulka geeda jiifaan oo nimcadii uu dhulka dhigay daraadeed dhulka ay macnihii ay dhiroon tahay guriya sama barwaaqa meel guriya sama ah oo wanaagsan oo barwaaqa ah haddii geedi lagu furo oo macnihii la dego oo inta badan waxa sahanka lagu gaala bixiya meesha carrada wanaagsan xooluhuna ay ku taransanayaan doog wanaagsan leh ama caleen wanaagsan leh dhalinyaro iskurataa gurdan raaca fiidkii iyadoo koox wada socoto golo weyn ku kulanto gole waa halkii macnihii imankana abwaanku wuxuu galay kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed ku lahaayeen ciyaaraha ama ciyaaraha goobaha ciyaaraha la isugu yimaado iyaga laantood ciyaartu may suurto gasheen oo ragga helamaalka ama organagoodada leeyahay inta badan waxay iskugu iman jireen dhulka deegaanka ama geliga ay haweenku og yihiin bay ciyaarta ka qabsan jireen iyaga isku sii buuxin jiray si haweenka ugu yeedhaan ayay inta badan heesa qaadi jireen heesahaas oo ah beer la xus si haweenku u soo baxaan heesaha waxa inta badan kamid ahaa naamiganay marti hadaa tahay oo reerkana maalu soo galay muska kaama eegeen dabeetana kii saaxiibkiyaaba u hel celinaya wuxuu oranayaa aamin ilwad qurux way soo ordi lahayd aarba hor yurra macni hadegdegin buu leeyahay way noo imanaysaa laakiin hooyadeed ayuu aar ka soo qaadaya moogtay hooyadeed ba halka aqalka afaafkiisa intay salli dhigatay dabeetana salaadii ku tukanayso tusbax weyn ku wardiyaysa tab iyo xeelad kasto ku soo dhaaftana way soo dhaafaysaa macnihi sug buu leeyahay xilliyada ciyaaraha hadaba mar walba lama ciyaari jirin marka loo eego dhaqankeennii wanaagsanaa xilli walba lama ciyaari jirin waxa la ciyaari jiray xilliyada la naqaysto ama guyaadka ayaa la ciyaari jiray xilliyadaas oo ah xilliyada barwaaqada ah ee hawsha laga nasto hadday mid xoolaad noqoto hadday mid guri noqoto hadday sahan noqoto hadday noqoto biyo dhaamisba iyo hadday geed noqotoba xilliyada laga nasto inta xooluhu ay kayntan agtaada intay ka dhargaan ay 12 kaba farfadhiisanayaan nolosha loo yaqaan barqadharagee xaggan iyo xagganba xareeda waran marka wuxuu yiri agta garangarteedii isu geysa jiibto waa ciyaartii googooska luuqda iyo gedda sacabka loo jaro googooska luuqda gedda tabta caynada gedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro oo sacabka ama dafta ama hadiye jeeraale sacabka waxa lahaa haweenka lahaa hal curintana inta badan ragga helamaalka baa lahaa marka wuxuu yiri garashada codkooda qof gaboobay kicisee haddaan gabadhi boodayn wuxuu yiri garashada codkooda qof gaboobay kiciso galbiskiya mushxarada gama ka ilaashe galbiskiya mushxarada macnaheedu inaan aad u cod wanaagsani marka ay ku yeedho ee ay qaadayso heesta galbiskiya mushxarada gama ka ilaashe haddaan gabadhi boodayn goobta ciyaareed haddaan gabadhi boodayn
ileen gegi ciyaareed gegi macnihii meel laga ciyaarayo ama gegi waa meel laga ciyaarayo ciyaartaas ka socoto wax ma dhaanta giriyaad barbanaan macnihii wuxuu uga jeedaa ciyaartaasi ma suurto gelaysa haddii aanay haween joogin galbiskiya mushxarada gamac kaa ilaashee haddaan gabadhi boodin ileen gegi ciyaareed wax ma dhaanta giriyaad meel bannaan ileen wax ma dhaanto intaa wuxuu kaga baxay abwaankaasi saamiga ay ku leeyihiin ama kaalinta ay kaga jiraan haweenka Soomaaliyeed mar haddii ciyaar la iskugu yimaado meeriska laga bilaabo ilaa iyo intii aynu soo dhaafnay waay imikana wuxuu u gelayaa ujeedada labaad ujeedada saddexaad baan ujeedaa wuxuu yidhi haddaan guudka laga jarin gudihiisa xaabku waa caleentu markay qalashay dhulka timaado ay xaab baa loo yaqaano xooluhuna way ku taransadaanoo guyaadka ama naqay ku sugaan markaa wuxuu yidhi haddaan guudka laga jarin gudihiisa xaabkiyo cayayaanka laga gurin marwo dumar garka u xidhan ileen guri dugsoon male taasina waa kaalinta nadaafadda iyo kashkaashka wanaagsan ay haweenka Soomaaliyeed ama sida loogama maarmaanka ay u tahay ama la dareemo gurigaana inaan joogin xagga nadaafadda guriga nadaafadda guriga intaasina waxay ka warramaysaa haweenku inay yihiin ama lagama maarmayn ay u yihiin nadaafadda guriga oo waa la kala gartaa guriga ay habluhu joogaan iyo guriga aanay joogin waa la kala gartaa markiiba xagga nadaafadda ayaad ka garanaysaa haddaan guudka laga jarin gudihiisa xaabka iyo cayayaanka laga gurin marwo dumar garka u xidhan ileen guri dugsoon male unsi iyo kashkaash iyo nadaafad iyo isku dheelitirnaan gurigaasi ma yeelanayo waay wuu ka gudbay abwaankaasi wuu ka gudbay imikana ujeeddo kale u gelaya oo ka bilaabmaysa halkaa ka bilaabmaysa ilaa iyo halkaa wuxuu yidhi gaadaha habeenkii gaada haddaad maqasho waa col u sahan ah laakiin halkan si kale ugu jirtaa markaa wuxuu yidhi gaadaha habeenkii kelidaa galgalashiyo gaadaha habeenkii kelidaa galgalashiyo gadgadoonka dhaliso gadgadoon isrogrog iyo baaxaadega adig iyo go-aaga hadba dhinac u guuro barkintaad gabbood waa maxay talo gabbood waa dhufays barkintaad gabbood iyo gaashaan ka dhigataa buuri barkintaad gabbood iyo gaashaan ka dhigataa haddaan guud haldhaalay waa inantii quruxda badnayd ee timaha dheerayd haddaan guud haldhaalay hadba gacan la saarayn ileen gogoshu wehel ma leh halka meeriskaasaa inoo macneeyey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meerisna waxay ka warramayaan haweenka Soomaaliyeed inay nolosha u yihiin wehel inay nolosha ay u yihiin maxay inay wehel u yihiin wuu ka gudbay imikana ujeeddo kale u gelayaa iyo kaalin kale oo ay buuxiyeen haweenka Soomaaliyeed wuxuu yidhi kuma gala adduunyada nina gooni socodkoo marwo garasho dheerba ninka raga u gudinoo iyadaa guddoonkiyo garhayaha naftaadiyo gaadiidka reerkiyo gurgurshaaga noqoto arrin kula gorfaysee haddaan gaari kula jirin ilaa noloshu guul ma leh haye aan dib ugu yar noqdo anigoo meerisada ereyada baan jeedaa adag ku yar calaamadinaya kuma gala adduunyada ninna adduunyada kuma samaado ninna gooni socodka qofna gooni socodka iyo inuu keligii guul gaadho ma suurta gasho
marwe garasho dheer baa ninka raga u gudina gudintiiyo hangoolku waa hawl fududeeyaha reer miyiga oo gudintana waa lagu gooyaa laanta hangoolkana waa la iskaga qabtaa waana lagu soo jiidaa iyadaa guddoonkiyo iyadaa hawl walba guddoonkeeda ah oo kula gardaadinaysa ama kula daadihinaysa iyadaa guddoonka iyo garhayaha naftaadiyo garhayaha macnihii garqabashada hoggaanka halka u wanaagsan iyadaa kugu toosinaysa gaadiidka reerkiiyo gaadiidku waa had iyo jeeraale awrta ay la rartaayo la yidhaahdaa gaadiid waa ka halkan abwaanku ku sheego wuxuu uhi gurgurshaaga noqoto gurgurshaagu magacyo fara badan buu leeyahay gurgurshaa baa la yidhaha gurshaa hayin baa la yidhaha giidhay baa la yidhaha dalaandaliyaa la yidhaha biyo madaadshaa la yidhaha biyo madaadshaa la yidhaha magacyo fara badan buu leeyahay suugaantana inta badan waa lagu arkaa gaadiidkii la dhaansanayay iyo giidhaygii madhay abwaan baa isticmaalay dal iyo magac bay lahayd dawi iyo sharaf bay lahayd duud iyo dhaxal bay lahayd da iyo dadhaxay lahayd da-aa yaryar bay lahayd wandool culus bay lahayd dalaandaliyay lahayd maxamed ibraahim warsame hadraawi waay markaa wuxuu yidhi gaadiidka reerkiiyo gurgurshaaga noqoto arrin kula gorfaysee arrin wal oo reerka ku soo kordha hadday gabadh caqli iyo kasmo u saaxiiba ay tahay sida wanaagsan ayay kuula rogrogaysaa haddaan gaari kula jirin gabadh gaariya haddaanay kula jirin oonay nolosha kula wadaagaynin ileen haddaba noloshaad nooshahay ma yeelanayso guul waa xaqiiq weeya oo dumarku qaybaa loo qaybiyaa qaybahaa waxaa ka mid a qaybo dhowra ayaa loo qaybiyaa tusaale ahaan oo kale gabadh saddex way sheelan yihiin baa la yidhaha oo ma sheeganaa waa bagagida basarida gaashalayda midkay doontaa noqotay saddexdaasi waxaa la yidhaha mash iyagu waa saddexda laga wanaagsan yahay saddex baa haddaba foolaadka haweenka ah waa gabadha loo yaqaano la yidhaahda gaarida oo marka jaranjarada kala sarraynta la eego waa gabadha ugu hooseysa gaari waa gabadha nadaafad meel isu taagtay laakiin wax kaloo u soo raaca aan lagu dembi gelaynin gabadha ku xigta waa gabadha loo yaqaano dhabeel baa la ydhaha dhabeel oo inta badan labadan lama kala reebo waa dhabeeshu waa gabadha gaarinimo meel isu taagtay gaarinimadiina waxaa u raacay qurux baa u raacday iyo dheg wanaagsan oo ilqabatinleba u raacday gabadha dabeetana inta badan lama kala reebo waata la dhaha dhabeel gaari dhaqasho leh adigaa dheg iyo qurux rabbi kuu dhameeyo waxaa dumarka dheer tahay dhulka aad ku abatay dhaqan hooye weye iyo xasan xaaji cabdillaahi xasan geni iyo maansidii dhooma hasana waay foolaadka haweenku haddaba waa gabadha loo yaqaano qariyad magaca kale loo yaqaano waa gabadha la ydhaha jaaribanta waa gabadha la yidhaahdo maahmaahdu ay ku soo aroortay ee la yidhaahdo jiritaan qoys jiritaan qoys hee waa jaariban haween
haween jiritaan qoys waa jaariban haween qaryadu waa gabadh gaarinimo meel isu taagtay quruxna meel isu taagtay labadaasi waxa uu raacay caqli iyo kasmo wanaagsan oo ay ku maamusho qoyskeeda iyo reerkeeda waa gabadh dhiifoon waa gabadh caqli u saaxiib ama la saaxiiba waa gabadh fikir wanaagsan waa gabadh hadal wanaagsan waa gabadh soo dhaweyn wanaagsan waa gabadh habka iyo hanaanka gurigeeda loo maamulo ilaahay baray waaye markaa wuxuu yidhi ilaa noloshu guul male halkaana wuxuu ku dhameeyay abwaanku in gabadhu haddii ay tahay gabadh caqli wanaagsan ay noqonayso gabadhaasi gabadh inta badan uu ninkeedu la tashado oo ray wanaagsan oo wax ku oola uu ka helo waa xagga tashiga inay lagama maarmaan ay tahay haweenku ay nolosha u yihiin wuxuu yidhi abwaanku dhaxtaalkii baa ku soo noqday gocashada xanuun kale waxaan uga gol leeyahay gocasho waa hibasho gocashada xanuun kale waxaan uga gol leeyahay aan uga jeedaa gocashada xanuun kale waxaan uga gol leeyahay halkaa waxaanu ka dhadhansanaynaa inaanu weli abwaanku ujeedooyinkii aanu inoo dhammaystirin uu leeyahay waan soo socdaa ay suga oo ha degdegin iminka wuxuu la hadlayaa haddaba abwaanku barbaartii buu la hadlayaa iyo dhallinyarada ina rageed buu weliba intaasi uu usoo hangagaarayaa uu doonayaa inuu war murtiyo muhiima uu gaadhsiiyo ina rageed dabeetana wuxuu yidhi go-i waa barbaare go-i waa bi'i waaye barbaare gobtu ama gobi waxay ku dhaqantaa oy ku tarantaa oy ku taabagashaa garabna waxay ka dhigataa gololada haweenkee waxtarka wanaagsan ee haweenkee garab waxay ka dhigataa gallad waxay ka dheeftaa samo iyo wanaag waxay ku gaadhaa gololada haweenkee waxtarka haweenkee hiddaheenna gaarka ah hablihii gabowgiyo geerida ku sugi jiray macnii wuxuu uga jeedaa haweenkeennii soomaaliyeed hadda hablo dabargo-ay lagama sheekaynayo macalaa kuwanaa ku jira oo macnihii dee haweenkii horaa wanaagsan loogama jeedo markaa wuxuu yidhi go-i waa barbaarey gobi waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa gallad waxay ku dheeftaa ama ka dheeftaa samo waxay ku gaadhaa gololada haweenkee hiddaheenna gaarka ah hablihii gabowgiyo geerida ku sugi jiray macnihii dhaqankeenu waa dhaqan aada u wanaagsan oon diinta khilaafaynin inantu markay yar tahay ayaa waxaa lagu soo barbaariyaa dhaqanka wanaagsan macallinkeeda koobaadna waa hooyada waayo inantu hadday dabadda u baxdo waa tusaalaha guriga haddaan u sii daadego waa tusaalaha hooyada waa sababta la yidhi inani waa hooyadeed qaabka ay wuxuu soo dhaweynayso inantu actionkay ka qaadataa waanay daawataa cashar bay ka qaadataa qaabkay odaygeeda ama aabbaheed ay hooyadeed ay ula hadlayso fikir bay ka qaadataa wanaagsan sida hadallada naxariista leh dareentaabadka le adeegsanayso ee kalgacalka ku dheehan yahay waa cashar bay ka qaadataa inantu dabeetana way guntataa dabiiciyan bay u qaadataa hadhow toolo dabeetana gurigeedii bay la tagtaa gurigeedii markay la tagto dabeetana way ku maamushaa gurigeedii waa sababta la yidhi inani waa hooyadii dhaqankeedii bay wadataa waa saambal ama waa tusaale markaa wuxuu yidhi goy waa barbaarey gobi waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa gallad waxay ku dheeftaa samo waxay ku gaadhaa gololada haweenkee macnihii waxtarka haweenkee hiddaheenna gaarkaa hablihii gabowgiyo geerida ku sugi jiray macnihii waa hablihii aan dhaqankooda ka guuri jirin geerida ku sugi jiray hablihii garayskiyo waa dharkii hiddiye dhaqankee xidhan jiray guntiimada macnihii dharkii hiddiye dhaqanka haweenkeennii
aan ka tegi jirin hidiyo dhaqan wuxuu yidhi hablihiigu iyo dayr hablihiigu iyo dayr sida baarqab golongolay sida baarqab golongolay sida abwaankaasi wuxuu adeegsaday haddana qalabkii ekeeyaha ayuu adeegsaday markaa wuxuu yidhi sida baarqab golongolay sida baarqab golongolay baarqabku waa awrka qoodheed ee tarmiye geela waana awr inta badan calaamado u gaara ayuu yeeshaa xilliga uu qooqa ku jiro ama uu qooqan yahay ee aanu da-furin waa xilliga uu macnihii marxaladan qooqa uu ka baxo ee uu awrtaasi calaamado u gaar ah ayaa jira haddaba waxaa ka mid ah awrku markuu qooqan yahay dhibi buu yeeshaa waa kow maylimaha iyo micyuhu saa u looliyaa waa laba tawaad lagu gagabayo agiirka sayntile gobo-daa ka tidhaahda waa saddex dabeecad ma yeesho waa xilligu ugu xoogga wen yahay kurusku taan buu yeeshaa aburka ayuu labadaa ka saydhaa inta badan inan labeed ayuu xeradaa ka dhaariya oo keligii ayaa gela saa ugu gaaf wareega ardayda cashirkeennii maanta halkaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu